waxaynu maanta gelaynaa ghazwatu Taa'if ama duulaankii ama weerarkii uu nebigu ku qaaday calayhi salaatu wasalaam meesha Taa'if loo yaqaano. kadib markii qabiilkii Hawaazan la odhan jiray ay kala burbureen firdadkoodii ay u kala yaaceen meeshii la odhan jiray Nakhla iyo Awtaas, baaqigii ka soo hadhayana waxay markii labadaa meeloodna lagaga sii daba tegay waxay u sii jeesteen magaalada loo yaqaano Taa'if. magaaladan Taa'if oo ay marka horeba galeen nimankii reer Banu Saqiif la odhan jiray oo uu hogaaminayo ninkii madaxda u ahaa ee la odhan jiray Malik ibn Auf an-Nasri oo Hawaazin ninkii madaxda ka ahaaya. Malik ibn Auf iyo ciidan wixii uu watay waxay galeen magaalada Taa'if. Taa'if waa meel dhulbuureed ah, waa magaalo suur fiican ama teedad wanaagsan magaalada dhammaanteed uu ku wareegsan yahay, qalcado iyo xusuun leh. mana jirto magaaladaasi meel laga geli karayay ilaa iyo albaabka mooyaane, yani albaabada ay xusuuntu leedahay magaalooyinka degri baa lagu wareejin jiray ciidamada iyo waxa la iskaga celiyo. marka magaalo aad u adag bay ahayd, dhulka qura ee suurtagala in laga galaana meelaha dayrarka ayuunbuu ahaa. muddadii ay urursanayeenna waxay magaalada dhigteen oo ku xaraysteen xoolo la yidhaahdo waxay ku fillaan karayeen ilaa iyo muddo sannad ah. macnaheedu waxa weeyaan sannad dhan dagaal ayay ku joogi karayeen. muslimiintu waxay soo gaadhay Taa'if baa la yidhaahdaa Shawaal 20keedii meelaha, oo kadib markii dagaalkii Xunayn iyo saraayaadkii laga daba diray Nakhla iyo Awtaas markii ay dhammaadeen oo bisha 10keedii ama Shawaal 10keedii meelaha dhammaaday. waxaynu odhan karnaa kuwa soo bilaabmay baan leenahay Shawaal 10keedii ilaa iyo qaatay muddo 7 meelahaasi ama ka badanba. muslimiintu waxay isku dayeen inay markaa xisaar galiyaan ama isku weer inay ka qabtaan magaalada Taa'if la yidhaahdo, oo aanay suurtagal ahayn meel ay ka galaanna aanay furayn. yani meel allaaliya meel duulimaad lagaga qaadaa ma fura, waxaa qura furan in la go'doomiyo. marka waxay go'doomiyeen baa la yidhaahdaa muddo dhowr iyo 10 maalmooda. muddada go'doomiska yani riwaayaad badan baa ku soo arooray oo ku tilmaamaya waqtiyo kala gedisan, lagana yaabo qaar dhowr iyo 10 bay sheegayeen ilaa 40 casho. laakiin xaqiiqa ahaan markaynu eegno waxaad odhan kartaa kollay muddo dhowr iyo 10 way gaadhaysay inta meesha tan ay go'doon ku jirtay. marka aynu duuduubno taariikhda inkastoo axaadiis saxiixa ay 40 ku soo aroortay, haddana waxaad moodaa qolada taariikhdu inay isku dayaan inay bushiyaan. sababtuna waxa weeyaan muddadii waqtigii uu cimraystay iyo waqtigii uu Madiina ku noqday iyo waqtigii uu halkan joogay marka la isku daro bay leeyihiin muddooyinkan la tilmaamayo way ka badantay. markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo socday magaalada tan Taa'ifa, waxaa la yidhaahdaa dariiqii qadiimka ahaa buu soo maray ee Taa'if xagga koonfureed ka soo gelayay, oo waxay soo mareen Nakhla al-Yamaniya meesha la yidhaahdo, dabeetana qarni al-Manaasil oo aan odhan karno waa meel 80 kilomitir u jirta Maka ama 53 kilomitir u jirta Taa'if. yani waddada hadda la maray laamiga ahi way ka dhowday waddadan markaas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay soo mareen. waxaanu ku talagalu nebigu calayhi salaatu wasalaam Hawaazin imdaadaadka ama taakulaynta ay siin karto iyo reer Banu Saqiif inuu kala gooyo. muslimiintu waxay soo degeen magaaladii, waxaynu nidhi waa qalcado iyo suurar ku wareegsan oo aan lahayn meel laga galo. marka meel u dhow qalcadihii ay lahayd Taa'if ayay soo degeen, laakiin waxay degeen baa la yidhaahdaa meel leebabku ay soo gaadhayaan. dabeetana nimankii gaaleed leebab aad u tiro badan labay ku soo daayeen. taasi waxay kaliftay markaa haddana inay muslimiintii mar labaad isku dayaan inay ka yaro durkaan markii uu ku batay leebabkii iyo wixii. waxaa la yidhahdaa dagaalka kani waa dagaalka qura muslimiintu caadigii nebiga calayhi salaatu wasalaam siday nimanka taariikhda qora ay soo sheegayaan ay isticmaaleen 2 shay oo aan dagaalada kale lagu isticmaalin. mid waa shayga loo yaqaano dabaabaadka, yani dabaabadu maaha tan imanka kaaraha ah ee aynu naqaano,
waxaa jiri jiray cahdiyada hore bahal dabaaba la yidhaahdo dabaabadaasi waxay ka samaysnaan jirtay baa la yidhaahdaa alwaax ama looxaan adag oo harag lagu dahaadhay oo markaa aan leebkan iyo waxaan dhadhowa waxaan la soo tuuraa aanay ka soo dusaynin cajilado yarar ama taayiro soconayo kalena way lahaan jirtay markaa qofka ama cid inta dabaabada la soo dhexgeliyo ayay soo kaxaynayaan markaa leebabka lagu soo ganayo waxaasoo dhan waxba yeeli maayaan ilaa ay suurka derbiga ka soo gaadhaan si derbiga ama ay u qodaan ama ay wax uga sameeyaan ama noocaasi oo kale ah markaa nawcan maa dee sidaa dabaabadaniba xabadda yar u celisay ninka wata aanay ugu dhicin ayay dabaabaadkaasina ahaan jireen waxaa lagu tilmaamaa dagaalka kan waxay muslimiintu adeegsadeen aaladaasi khashabka adag iyo ka samaysan jaldiga ama haragga ka samaysan ee taayirada wareegaya leh ee si suurka ay ugu soo dhowaadaan waxaa la yidhahaa markii ay derbigii yimaadeen muslimiintuna dee kolley wax kastaba sida dabaabadahan caadiga ah arbj7ka loogu dhufto ama bahalladan waxaa la isticmaali jiray waagaana bahallada dabaabada loo yaqaana aanu gamuunku karayn gamuunku wuxuu la mid yahay iyadoo gaashaankii uu ku dhacay gaashaanku baa wuxuu ka samaysnaa uun harag dabaabadaha noocana waxay ku isticmaali jireen baa la yidhaahdaa wax la biraa la gubi jiray bir kulul baa markaa lagu soo tuuraya dee waxaynu naqaanaa maaskana in birtu ay jeexdo ama si ay daloolinayso marka waxaa lagu isticmaalay alxadiid almuxamaa ama birihii la kuleyliyey baa lagu soo ganay taasi waxay keentay in dabaabadihii ay daldalooshameen oo haddana muslimiinta ay dib uga baxday waxaana yidhaahdaan waa uu dagaalkii ugu horreeyey ee muslimiintu ay adeegsadaan aalaadka kan manay haysanin muslimiintu markaas baa lagu tilmaamaa aaladaha lagu burburiyo derbiyada wakhtigan waxaa kaloo la sheegay culamada taariikh sheegaan meel jarsh la yidhaahdo alyamaniya jarsh alyamaniya la yidhahda waxaa jirtay waxaa lagu samayn jiray dabaabaadka iyo bahalo la yidhaahdo manjaniiq manjaniiqu waa isna ul dheer ama geed dheer oo taayiro la wareejiyo leh oo geedka la soo foororinayo oo kiish xagga sare laga saarayo ama saan oo kale saantaasi ama dhagax lagu gurayo ama biraha qululiya wax lagu gurayo dabeetana la sii daynayo tuurasho waa wadhaf weyn oo kale marka iyana waa bahal wax lagu tuuro isagana manjaniiqyadana waxaa loo adeegsadaa in derbiyada lagu dumiyo ama hub culculus oo waaweyn oo kale sidii madaafiicda kale in loo rido waa halkan maanta madaafiicda laga isticmaalo kale waxaa la yidhahdaa beriga wakhtiga kan manjaniiqyana muslimiintii way adeegsadeen bay yidhaahdaan qolada taariikhda qorta qaar waxay yidhahdaan manjaniiqyada tan waa la soo iibsaday oo meeshaas u dhoweyd baa laga keenay qaar waxay sheegaan maaha salmaan alfarisi saxaabigii la odhan jiray baa u tilmaamay qadiyada tan oo u hindisay calaa kulli xaal riwaayadka arrimahan ka hadlaya waxaa ugu badan un axaadiis mursalah mursalka tamartiisana dee waa iska taqaaniin waxaynu odhan karnaa waxay adeegsadeen baa la yidhaahdaa dagaalka kan manjaniiqana waa la adeegsaday laakiin ma ahayn manjaniiqyo ku filan oo dee xusuun badan dumin kara ama wax badan qaban kara marka la isku daro labadan shay ee la adeegsadayba way suurtoobi weyday uun in la dalooshado ama la furto qalcadihii waxaa la isku dayay in xisaarka muddo lagu hayo waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiis mursal ay tilmaamayaan oo kale wuxuu haddana isku dayey in beerihii agtooda maadaama inu dhulku beeralaya waxbuu ahaa in beeraha qaar la gubo ama la googooyo cinab iyo nakhiil iyo caynka kuwiina nebiga munashada bay ku sameeyeenoo way qayliyeen inuu ka daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska joojiyey waxaa la isku dayey si kasta oo meesha loo geli karo oo way adkaatay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey inuu iclaam bixiyo iclaamkaoo la yidhaahdo dadkan addoome ay haystaan ee gudaha ku jira addoommahoo waa loo dhawaaqay ciddii soo baxday ee meeshaa ka soo baxda xor baad waxaa la yidhahdaa addoommihiina waxoogaa ayaa soo dhacay waxaa la sheegay ilaa dhowr iyo 10 nin oo abubakr thaqafiyo ay ku jiraan ayaa iyana soo daato dabadda u soo baxay waa islaameen dabeetana waa la xoreeyey iyagana waa la sii daayey inahaasoo dhan marka la isku daro un haddana may suurtoobin in qalcadihii la jebiyo ama se la dhaafo muslimiintiina waxaa aad uu markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam isku dayey inay balyana gantaalladan badiyaan oo aad u isticmaalaan walidalik waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku tilmaamayay man balaga bisahmin falahu daraja fi ljanna ninkii gammuun gaadhsiiya nimankaasiba hal darajo jannaa buu leeyahy markaasaa gammunnadiina la waday waxaasoo dhan may suurtogelin in la furto
qalcadii dhanka kale waxay culimada taariikhdu tilmaamaan inay muslimiintaba ku badatay dhaawicii waa iyagii waa makshuuf dabadda meel bannaan bay ka joogaan gamuunka iyo leebka iyo wixii la soo tuurayo o dhan waa lala dhacaya qolada kalena waxay kaga jirtaa dhufaysyadoodii bay kaga jiraan saa daraaddeed waxaa la tilmaamaa in dhaawacu muslimiinta ku batay sida xadiidkii saxiixulbukhaariga uu tilmaamayey waxaa kaloo la sheegaa sida ibnu isxaaq biduuni sanad uu kuwa warinayo ilaa iyo 12 nin in laga dilay muslimiinta meeshaba way leeyihiin aan nimanka gaaleed lagaba dilin sida xadiis mursal abu daawud ay tilmaamayaan 3 mooyaane wax kalaba iyaga laga dilin waxaa riwaayad saxiix iyaguna bukhaari ku sugan ay tilmaamayaan xataa nabigu inaan xoog ugu qastinin meesha in xoog la isugu maqiiqo ama in la furto laakiin laga dan lahaa in shawkadeeda nimankan xoogoodu in la yara jabiyo tabartooda la tusiyo waayo marka kan Taif waa dhul ku dhex yaala muslimiinta koona walba muslim ka xigo marka meel tijaaro ay leeyihiin u soconaysaa ma jirto meel kale ay mari karaan ma jirto waa sidooda isaga tahayba magaalo yar oo goodoon oo ku dhex taala dhul muslimku uu furtay oo dhan walba muslimiin ay ka xigto waxaana la yiraahdaa waxay ka mid ahaayeen dadkii uu nabigu la jeclay calayhi salaatu wasalaam islaamnimadooda ama inay islaamka qaataan waayo dad baa la yiraahdaa ahlu fatana wa dhakaa ayuu ku tilmaamaya karam diyaa al-umar inay nimankaasi ahaayeen waana dee meesha aad garan kartaba inuu nabigu uu qastiyay Makka markii ay waxba ka dhageysan weyday meeshii labaad ee uu sidii diin gaarsiin ayay ahayd uu qolada tan u tagay بعض الصحابة بقى وحلا يدي وحيد هذا نلاقي رسول كيسيا ونمانك كان نمانك حبار خير تقيف النجا حبار يبقى تنين بجود عيال يدي وحوق حبار في وحوق قدقي اللهم اهدي الثقيفة إلى غير ثقيف صح هنوني أي نبي عليه الصلاة والسلام حبار وقدقي سيدا حديثه ترمذي ورنا يا الباني وصحيح وشيغي إن كستو لي هي صحيح ونقول الله بيقول على شرط مسلم لولا عن عنة أبي الزبير لأن ayuu cancanadiisa diidan yahay waxayna odhan karnaa muddo markii lagu hayay go'doomintaasi waxa suurtoobi weyday in la furto dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray markii waxoogaa la isku tuurtaray waxba suurtoobi waayeen in la guuro la iskaga tago bacdu saxaaba markaa yara adkaysto yidhi ilaahay rasuulkiisii weyna ka tegi nimanka aan dagaal la gallo saasaa jeceshiin baa la yidhi bal waaye wada عبارة ممكن مدلل ودودي وحى مغطينا وحبس عنين مر لبعض النبي عليه الصلاة والسلام مسكتنا حسارك كفر رقلنا كتجنا مركي دبوا الإسكاق بالله مركي الله أركينا أنا صورة جلا حين إن لفران كره سيد حديث كبخاري وتلمامي وحنا كنا قدين مال جعران الله يرهضه جعران وحل التجيبة الله يرهضه مالنتي الشناد ذي القعدة مالنتي الشناد هذه القاعدة يا جيران اللي تجي وهذين قادنا الرأي هذا طبعا إني كشرتي جيران واحد شو جمر كا غريمة دي أما حوله ترى ضبطنا إلا جفرتي نمكن غيره وزنية ثقيفة قسمة حولها أما قايبين تود النبي مدود دبورك وحنا نسوي بل إن ذكر عيسى إسلامنا ما يدين تسوقاتنا ما واحد بدله دورية طبعا مع المد والسجي بالغت الماما النبي عليه الصلاة والسلام حتى حصار طائف فرق كسر نقضي بالله إلى إن يرى العجا وبقيب كيبي ما يعني حولا أنت بدنيد ميل بكو هيي لكن من كرر هو زواها في صامين كذب النبي بقيبي حاله غنيمة ده أما حولها الله صا ضجال خلقو قبصده هي صيد القرآن كشيء جيو خمس شن ميلاد مرك الله قيبية ميل نبي كوكيل عليه الصلاة والسلام وكيل هيله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلهي وحلي إلهي وحا أصدنا ذي الرسول كيس يقوى قرابة وصاحبي يا غونتي يا مساكين يا إنا وضو قلاص خمس بيلين بلي شن ميلاد وميلحان أفر ميلاد وميلحان تكلا وحا إسكاله dadkii dagaalka galay furtay ayaa leh hal saham ninka lagu leeyahay abaa leh saddex sahamna ninka fardoolayda oo labana faraska lagu siinaya midna isaga qaadanaya مثلا أكرم ضياء العمري wuxuu ku tagay ra'yiga oranaya waa xoolaha manquulka xoolaha guuritaanka u saaxiibka ah ama xoolaha غayru manquulka abuu leeyahay beeraha iyo daaraha waxa ku saabsan imaamka muslimiinta ayaa u mukhayyara inuu qaybiyo
iyo inuu mulki caama uga dhigo muslimiinta oo muslimiinta oo dhamay wada adeegsato xoolihii la furto iyadoo aanay dhicin dagaal iyo waxaasi ilaahay uu nabiga u furo calayhi salaatu wasalaam iyada fay baa la yidhaahdaa faygaasna iyada masaalixda caamka ee muslimiinta ayuunbaa lagu bixinayaa waa kuwa suuratu alxashr ay ka warramayso وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى يعني آيات كوا إلهي كورمايو وحي أيضا إيجاب كصميننا خيل يركاب صانا وحيدا نفول ما أوجبتم من خيل ولا الركاب فلله وللرسول قوالة المام يوهي وحكى الله بنام بالله حولا وحي نفلية ديرادة نوع كان غنيمة أما غنيمة دا انت عن لقيبين ان دادك قاركوت وحلوغة التلمامه قبل إخراج الخمس منها وبعده ما كان صوت ضمن النبي عليه الصلاة والسلام حوله هو قيبي لكن هو قيبي قاب دادك برد حكمة دي أي كي رقص صوتي هرو قرن وايه حولها وحو أبدي النبي عليه الصلاة والسلام نمكي عصبايا صو إسلامي مكاك صو راعي نمكي رير بادية هاي الدين تصوق علي كوي إسلام نمضى كو عصبا وحاسو حول بدن مالتها سيئ النبي عليه الصلاة والسلام سي إسلام نمضى قلبي قوة ودكتو مثلا وحلا إذا عيينة بن حسن إنكي لورنشري غطفان وضيّد إذا الزعمة إذا كم إذا أن الرير بن فزارة أبوها عيينة بن حسن وقال بقل قيل أبو النبي وسي غير يرمية هاي السنة لورنشري الأقرع بن حابس السنة بقل قيل أبو النبي وسي بالله عليه الصلاة والسلام نمكو مالمها كان حولها بدن سي وحكم إذا هبالة لأن الله يدعوه علقمة بن علاطة وحكم إذا العباس بن مرداس من قبياها هاي السنة وضيّد قبائل كم إذا وحكم إذا هبالة لأن سهيل بن عمر صحابي نبي هشيس كلجل أيي صلح الحديبية يا مشركين تكتر سنة ومركا كان كم إذا طلقادي مكة نمكي إسلامين نبي خسر راعي وحكم إذا حكيم بن حزام وحكم إذا أبو سفيان بن حرب وعلى ده أبو سفيان بغلبوسي markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisii ou hebel lama jiro u dhalay markaasuu boqol siiyey markaasuu mid kala kelay markaasuu boqol siiyey bay riwaayaadka qaarkood tilmaamaan waxaasoo dhibana waa riwaayaadka ahlu taariikh yani axaadiis xoog badan maan arag laakiin waxaa cad un inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kan uu u badiyey raggu xoolaa badan siiyey waxaa ka mid ahaa safwaan ibnu umaya ibnu isxaaq qaa'imada nin ee boqolka la siiyey 12 buu ka dhigay wuxuu kaloo sheegay 5 nin oo iyagana boqolka looga yareeyo xoolo badan qaatay ibnu hishaamna 29 buu ka dhigayaa nimanka mu'allafatu quluubuhum xoolaa la siiyey غيركينا waxay ku sii dareen 23 kale waxa meesha ka muuqda 52 nin oo mu'allafatu quluubuhum ah in xoolo aad u badan la siiyey xoolahan tirada badan lee uu nabigu bixiyay dad badan oo zaciimadii qabaa'ilkan iyo odayadoodii ayaa islaamnimadii ku soo jiitay oo raali ku noqday oo islaamnimadoodii fiicnaatay midmid mooyaane ragga inta ugu badan lee uu xoolahan siiyeyna markii dambe rag muslimiin oo aad u fiican bay noqdeen waa ka Anas ibn Malik leh in kana ar-rajul hadithki sahih muslim ka ku yaali in kana ar-rajul la yaslim ma yuridu illa ad-dunya fama yaslimu hatta yakuna al-islam ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha waxa dhacaysay buu yiri inuu mido u islaamo isagaan dan kala lahayn nabi maxamed xoolaha ku siiyuna xooladoon isagoo abay qaar islaamiyeen buu yiri laakiin marka ay islaamaan ayaa islaamnimadoodu fiicnaataa buu leeyahay ilaa ay adduun oo dhan ay nacaan iyo waxa kor yaalaba oo ilaahay diintiisa ka jeclaada waxaad garan kartaa dadkan markan xoolaha la siinayay markii dambe islaamnimadu sida qalbigooda u bedeshay geel iyo ari iyo wax walba waa la siiyey boqol geel weeyaan tan hore la siinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolahan uu bixiyay waxa la tilmaamaa safwaan ibn umayya oo kale wuxuu leeyahay laqad a'tani hadith sahih muslim ka ku yaala صفوان باو حليه لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لا أبغض الناس إلي حوليسي يقول تربض النبي ووحي وحوليسيني يوحيسيني أنا ضدك سقوا النعبي أيها الدنوحن حوليسيني فما برح يعطيني كم الزولين بولين نبغ حولون السيو حتى إنه لا أحب الناس إلي إلا وكان قضي بوليه ضدك كانوا شعلا سيدي حولون ليقوا ذي لي بحنيين ليسيني
ayaan ka noqday buu leeyahay dadba kaan u jeclaa uu ka noqday safwaanna wuxuu ka mid ahaa markaa dadka kan almu'allafata quluubuhum waxaad ka garan kartaa sidanuu nebigu wuxuu siinayay calayhi salaatu wasalaam markii dambena wuxuu gaadhay baa la yidhahdaa xad uu diido inuu qaato cataagii sanawiga ahaa ee muslimiinta markii dambe baytulmaalka nin walba xoolihii laga siinayey xataa markii dambe uu ku waajido u yidhahda anigu qaadan maayo yacni islaamnimadii iyo diintu halkii ka gaadhay markii horena wuxuu leeyahay waxaaba la islaamayba hungurigaa un sidii laygu waday xoolo ayuunbaa ilaahay islaamnimada qalbigayga dejiyey sideedaba adduunku ama hantidu insaanka meel adag bay kaga taallaa wainahu lixubu lkhayri lashadiid baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala insaankuna mar walba caqliga lagama wada hogaamiyo marar badan baa jiro meelo kale laga hogaamiyo insaanka si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam tahaaduu taxaabu wuxuu nebigu leeyahay hadiyaad isa siiya wax isa siiya waa isjeclaanaysaa waxaa hubantiya qof hadduu wax iska kaa siiyo oo maanta ku siiyo berri ku siiyo saa damba ku siiyo maalinta damba ku siiyo maalin shanaadda inuu noqonayo min almaxbuubiin dadka aad jeceshahay agtaada ku fiican inuu ka mid noqonayo baa hubaala walidalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kan xoolo badan u siiyey waana ka dee ilaahay zakadaba ku tilmaamay 8 zakada la siinaya inay ka mid yihiin maxay walmu'allafa quluubuhum kuwa qalbigooda la soo jiidaya ka mida 8 kooxood ee zakada la siinayo waxbixintu markaa wax fudud maaha nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam mujtamaca aad u badani waxay ku raaceen sidii wuxu siinayey uunaanay gacantiisu u joogsanaynin ayaa dad aad u badani ku raaceen waxbixinta nebiguna kumay xidhnayn siduu dadka u kala jecel yihi yacni kuwo badanoo aanu jeclayn buu siinayay kuwa uu jecel yahayna wuu qadinayay walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayay wallahi inii la ucطi rajul waadaci الrajul wاladii adacu axabu ilaya min aladii ucطi ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi nin baan wax siinayey ninna waan ka tegayey iyada oo kaan ka tegayey agtiisa lagaga jacayl badanya kaan wax siiyey yacni dadka sidaan ugu qaybinay kuwaan wax siinayey iyo kuwaan ka tegayey qaar badanoo aan ka tegayaan ka jeclaa buu nebigu leeyahy kuwo aan wax siinayey walakin acطi aqwaaman lima araa fii quluubihim min aljazaci wاlhalac qaar waan u siinayey buu yidhi xoolaha waxaan arkayay hunguriga iyo waxa ku jira waakilu aqwaaman ilaa maa jacala allahu fii quluubihim min alghina wاlkhayr qaarna buu nebigu yidhi waxaan u tala saaranayay waxa ilaahay qalbigooda haninimo iyo khayr iyo iimaan dhigay ayaan u tala saarto shilin uma dhiibin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu nebigu tilmaamayaa dad badanoo fiicanna inaanan waxba siinin dad iska liitana inaan siisiinayo islaam kuwan diinta iyo kasii fogaan xadiid kale waa ka nebigu le inii la ucطii rijaalan xudathaau cahdin bikufrin ata'allafuhum xoolaan siinayay buu nebigu leeyahay rag imikaun gaalnimo ka soo baxay aniga ku soo dhowaynaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ka nebigu lahaa inii la ucطi rajul wagayruhu axabu ilaya minhu makhaafa an yakubahu allahu fi nnaar qaar baan siinayay xoola buu nebigu leeyahy iyadoo qaar kale aanan ka jecelahay laakiin kuwaa waxaan uga cabsi qabay buu nebigu leeyahy in ilaahay naar madaxa wejiga ugu rido war naarta kaga soo muslax oo ka soo dhoweey baan u siinayay laakiin waxaa laga yaabaa xikmaddu marka ugu horraysa inaanay wada muuqanin sidaa daraaddeed baa ansaartii badh ayaa arrinkan hore u fahmi waayey dabeetana ragga badh ansaarta ka mid ah waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen ida kaanat ishidda fanaxnu nudca wa tucطa alghanaa'imu hayrana marka beledu joogtana annagaa naloo yeedhaya marka hantidu joogtana cid kalaa la siinaya oo dee xataa markii hawaasan la jabay ee ghaswatu xunayn markii jabku dhacayay ansaartu u yeedh baa la yidhi ya asxaabu baycati radwaan iyo rag gaara baa loo yeedhay marka waxay leeyihin marka beledu taagan tahayna kuwa loo dhawaaqaya waa annaga markay waxbixintii iyo gacantu joogtana cid kalaa wax la siinayaabaa ragga badh laga sheegay rag kale waxaa laga sheegay inay yidhaaheen yucطi quraysha wayatrakuna wasuyufunaa taqtaru min dimaa'ihim nebigu calayhi salaatu wasalaam quraysh buu wax siinaya annagana wuuna dhaafaya iyadoo qurayshta wax la siinaya weli seefaha iyaga dhiiggoodii aanu ka qallalin yacni kuwaanu shalaysta diinta kula dagaalamaynay aan seeftuba dhiiggiisi ka baabi'in naxu hantaa loo badinaya annaganana lama siinin warkaa markuu maqlay ayaa waxa uu yimi saxaabigii sacad ibnu cubaada la odhan jiray wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo ansaari waxbay sheeganaysaa sacad nin aad u saraaxo badan buu ahaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal adigu ka warran xadiidka qaarkood waxay tilmaamayeen inuu ku yidhi de aniguna nin tolkii ka mid uun baana
dabeetana wuxuu yidhi igu wadaya ansaaroo dhan meel buu nebigu ku ballamiyey qubbadaa hoosteeda halkaa igu wada yeedh buu yidhi ansaar dhammaanteed ansaar baa la isugu wada yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ansaar la isugu wada yeedhay buu la hadlay ansaar wuu u khudbadeeyo wuxuu ku yidhi ansaare quraysh waa kuwa diinta ku cusub oo iminka jaahiliye musiibo ka soo baxay waxaan waxu siiyey waxaan rabay waxsiinta tan inaan ku kabo oo ku soo dhoweeyo miyaydaan idinku raalli ka ahayn in dadku adduunka qaato idinkuna ilaahay rasuulkiisii aa gurigiinni kula noqotaan waa maalintuu nebigu lahaa haddii dadka oo dhammi waadi maro dooxa hadday dadku maraan ansaarina dooxa marto jidka ansaari martuun baan aniguna mari lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam muslimka oo dhan iyo dadkao dhan haddii la isugu yidho ay waddo raacaan ansaarina keligeed ay waddo gaara raacdo ka ansaari marto ayuun baan marayaa buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sharxay markaasi ansaar waxbixintiisani waxay ku xidhnay waxaa la yidhaahdaa weliba axaadiista qaarkood wuxuu ku yidhi ansaaray miyaanan idiin iman idinkoo lunsan waanan ilaahay diintiisa idiin sheegin waan ilaahay gacantayda idinku soo hanuunin wou u manna sheegtaa la yidhi nebigu markaasay waxay idhahdeen balaa bay idhahdaan allahu warasuulu amanu waafdal markii dambuu nebigu ku yidhi maxay iigu jawaabi weydeen haddaad doontaan waa ii jawaabi kari lahaydena waxaa odhan lahaydeen wallaahi baan ku dhaartay iyadoo lagu beeniyaad noo timi markaasaanu ku rumayn iyadoo lagu soo saaray baad noo timi markaasaanu kuu gargaarnay iyadoo caynkanaad noo timi yacnii wixii ay iyana lahaayeen buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam intaaba intaad tidhaahdaan baa runna ay ahayd oo aa ku run sheegi lahaydeen aniguna aan idin rumayn lahaana cidi idin beeniseen akhiiran nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma waxaa wax idinla noqday lucaac in yaroo dareer adduun yaroo aan qola u tuurtuuray idinkana islaamnimadiinaan idin tala saartay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay maqleen hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sababta kuwana waxu siiyey kuwana waxu siin waayey iyo nebiga agtiisa halkay ka joogaan iyo sida uu u jecel yahay iyo haddii dadka oo dhammi waddo maro ansaarina meel marto waddada ansaareed inuu nebigu marayo iyo inuu horeba ugu soo tilmaamay almaxya maxyaakum walmamaatu mamaatukum nolosha inta la noolyahay inayn idinka laydinla joogi doono geeriya nololba inaan dhankiinna ahaan doono ayay ansaari aad u qiiroodeen wararkii ay isdhex marmariyeen iyo wixii waayo waxay arkeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu wax u bixinayaa inay tahay fii sabiili alcaqiida dad inuu diintan ku soo hago iyaguna dee awalba naf iyo maalba waxay u horeen waxay ahayd inay diintan ilaaliyaan hadafku midunbuu noqday markaa ansaarina waxay naf iyo maalba awalba u huraysay caqiidadan inay ilaalisiyo diintatan nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waxoogaagan hantidee uu kuwan u qaybqaybiyey wuxuu ugu qaybiyey isagoo raba inuu diinta ku soo dhoweeyo labadooduba markaa inay fii sabiili alcaqiida uun ay u dagaalamayeen waxay kaloo dareemeen nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaanka iyo caqiidada iyo waxa qalbigooda ku jira siduu raalli uga yahay ee ugu tala saartay iyo aanu waxba u siinin dabeetana ansaari oohin bay bilaabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshuu uga khudbadaynayey waa dhammaantood foorarsadeen baa layidhi aad bay u ooyeen maalintana u khushuuceen iyagoo leh radiina birasuuli illaahi qisman waxada ilaahay rasuulkiisa baanu raalli ku nay annagu inaanu dheef iyo qayb u helno ilaahay rasuulkiisu in annagana raaco aanu qayb u helno dadka kalena wixii adduun oo dhan iyaga la siiyo kaas baanu raalli ku nahay bay isa soo taageen maalintan siduu nebigu wax u bixinaya calayhi salaatu wasalaam nimankii reer baadiye ahaa qaar ka mid a ee dagaalkii xunayn iyo waxa ka soo galay waxaa ka muuqday jafaa adayg iyo qalqallafsani waayo reer baadiyuhu sidoodaba waa niman iska adag nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa qaarinta u yimaadaan ay dhahdaan icdil cadaalad samee bay ku lahayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolahaasaad u qabayso ka cadaalad samee markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi shaqiitu in lam acdil waan hoogay haddaanad cadaalad samaynin buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam cumar baa ka cadhooday say u hadlayaanoo ilaahay rasuulkiisiiyo kuwan aan laaya buu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi macaada allahi an yataxadata annaasu annii aqtulu asxaabi ma suurtagal aha ilaahay baa ka magan galay inay dadku ku sheekaystaan nebi moxamed saxaabadiisa ayuu laaya nimankan reer baadiyihiina siday nebiga maalintan markay arkeen dee waxaana la qaybinayaa 40,000 oo neef oo adhiya iyo dhowr iyo 20,000 oo neef oo geela tiro gaadhaysa ayuu nebigu meesha ta ku qaybinayay
reer baadiyihii iyo dadkii xoolaha jeclaay oo dhamina dacal walba nebiga way haystaan maalintii waxay gaarsiiyeen intay nebiga say ugu buuqayeen ee ugu dhegdhegayeen ayuu geed ku nabay geedkii baa marada kala hadhay dabeetana reer baadiyihii dacalka oo nebiga go'ay qabsadeen ilaa uu yidhahdo actuuni ridaay waryaadheen war go'ayguuna siiye uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war go'ayguuna siiye buu ku yidhi hadduu ahaan lahaa cadadu haadi alcadaa cadaadkan uu sheegaya nebigu waa shajaratu shawk meesha geedcaday badan ba ku yaalay waxa geedcaday aragtaan hadday xool ahaan lahaayeen walla waa idin qaybin lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxba idin kama qaateen uma laa tajidunii bakhiilan walaa kaduuban walaa jabbaana manaydani aragteen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigoo mid bakhayl ah dhirta meesha ku taalla hadday xoolo tahay waa idin siin lahaa manaydani aragteen anigoo mid been sheegaya ama mid fulaa ah waxaa la yidhahdaa intuu neef dhogortii sidaa uga qabtay buu wuxuu yidhi wallahi maa lii min fayikum walaa haadihi alwabra faygii soo galay kamaan qaadan buu nebigu yidhi wuxuu kaloo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanay bannaanayn haniimada inta aan la qaybin xoolaha ciddii wax ka qaatay waa huluulkii inay xaaraan tahay oo aakhire lagu cadaab gelayo walidaalika waxaa la tilmaamaa nin karkara la odhan jiro mawlayaashii nebiga ka mid ah ayaa geeriyooday markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa fi naar naartuu kaasi galay markaasaa la baadhay dabeetana hal cabaa uu ka dhex qaatay xoolihii mara yarow meel gashaday baa laga soo helay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa amwaasha caamka ee ummaddu ay leedahay inay huluultay tuugadeedu naarna in lagu gelayo ninkan dhintay mara yara cabaa yar oo uu hoosta gashaday buu nebigu leeyahay iyadaa ku ololaysa oo uu naar la galay maxaad u malaynaysaa hantida ummaddu ay leedahay kuwa iska cunaya ama guranaya laa yajuus fi shariica marnaba hantida ummaddu ay leedahay walow ha yaraato maradaa yarna ha noqoto qayd in leegna ha noqotee aakhire naar horcaamaysa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan reer baadiye ee tirada badan leh ama hadal xumada ama hunguri xumada ama waxa kan kula dhaqmayayna waa isaga dulqaadanayo marna kama cadhoonin siday go'a ugu jiidayeen baa la yidhahdaa bay meelaha nabar kaga sameeyeen haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasi kamuu cadhoonin mana ka xanaaqin waayo mujtamaca kan inay islaamaan oo diinta soo galaan buu la rabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu ahaa murabbi dadkan rabbaynaya oo diinta baraya xoolihii markii uu qaybiyey ee uu dhammeeyey kadib ayaa waxaa la yidhi waxaa yimi qabiilkii hawaasan ahaa oo soo islaamay qabiilkii hawaasan ee xoolahan lahaa ayaa yimi oo islaama oo yidhi waanu islaamnoo diintii bay soo galeen dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xoolihii iyo reerihii iyo carruurtii keen idiin celiya waxay idhaahdeen xoola waxba ku fali mayne dumarkii iyo carruurtii sabyiga loo qaatay kuwa ha naloo soo celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu khudbadeeyey saxaabadii baadana dib isugu yeedhay wuu khudbadeeyey wuxuu yidhi inna ikhwaanukum haaulaa'i jaa'uuna taa'ibiin war walaaladiinna aa arkaysaan waxay inoo yimaadeen sida xadiidka bukhaari uu sheegaya walaaladiinna aa arkaysaan waxay yimaadeen iyagoo toobad keenay oo ilaahay u soo noqday aniguna waxaan rabaa buu nebigu yidhi inaan u celiyo wixii dumar iyo carruur laga soo qabsaday ee ninkii doonaya ee jecel inuu u celiyo yeel ninkii raba inuu dheeftiisa haysto qaybtii uu haniimo ku helay inuu haysto aanu celinna waxa koowaadee ilaahayna siiyaa baan kaa siinayaa ee aadna yeel yacnii ii soo wada celiya ninkii raallinimo isagoo ku celinayaana ku celi ninkii kalena badiilkeedaan siinaya dayn ha u haysto oo dayn baan uga qaadaya hadhow baan baaqiga siinayaaye ha soo celiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka intii badnayd waxay ahayd ayib waa ku niyadsanay u celinay ilaahay rasuulkiisiyo bay dhahay dumarkii carruurta oo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kala garan maayo dadka wixii raalli ka ah iyo wixii aan raalli ka ahayn ee dib isugu noqda oo reer waliba gaarkiisa ha u baxo oo waxaa ogoshiin inay celisaan yani odayadiinnu hay keenaan yani reerku celinay haddii la wada yidhaahdo qaar iska aamusan baa laga yaabaa in xoolahoodii la qaato oo aan iyagu ku jirin kuwa raba inay celiyaan ee cid waliba gaar ha isugu noqoto oo curafaa hay keenaan odayadiinnu arrintiinna hay keenaan dadkii dib bay isugu noqdeen dabeetana waa la wada hadlay xoolihiina markaa iyagoo ogol ayay soo fareenoo dib u soo celiyeen
midhadh baa diiday baa la yidhaahdaa xaqoodii inay ka tanaasulaan. midhadhkuna waxay isaga ahaayeen niman reer miyi iyo noocdaa ka mid ah. alaqrac ibnu xaabis oo kale ayaa isagoo hadlo wuxuu yidhi amaa ana wamaa libani tami, aniga iyo reerkayaga wixii u sugnaaday ma celinaya buu yidhi baa la yidhi. cuyayna bnu xisn ayaa isna yidhi aniga iyo reer banu fasaara, anigoo reerka qabiilkayga afkiisa ku hadlaya ma celinayo. kuwaana waxay culamaa'i siira sheegaan inuu nebigu u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inuu siinayo. culamaa siira waxay kaloo soo sheegaan nin gabaya ahaan jiro cabbaas ibnu mardaas la odhan jiray ayaa isna yidhi aniga iyo reer hebelkayagu celin maayo. markaasay tolki yidhaaheen waxba sheegi maysa, waa celinay annagu way ku yidhaahdeen reer banu sulaym waxba kama jiraan wuxuu sheegay waa celinaynaa. calaa kulli xaal labada nin baa la sheegaa. haddana taariikhda markaad dib u sii baadho waxay ragga taariikhda qora ay soo arooriyaan. alaqrac ibnu xaabis oo kale maalintaas in dhowr neef ama dhowr waxoogaa dumar iyo carruur yara uu helay buu lahaa celin maayo. laakiin dadkii markay islaameen ee islaamnimadu fiicnaatayna waxaa lagu tilmaamaa isaga iyo 10 wiiloo uu dhalay inay dagaalada ku wada geeriyoodeen. isaga iyo 10 wiiloo uu dhalay. calaa kulli xaal saas baa loogu celiyey baa la yidhahaa nimankii reer hawaazan ahaana dumarkii iyo carruurtii. wuxuu weydiiyey baa la yidhi nebigu reer hawaazan waar maalik ibnu cawf iga warrama, ninkii qaa'idka ahaa ee ciidanka watay. waxaa loo sheegay inuu isagu hawaazan ka tego uu reer banu haqiif inuu daa'if kula jiro oo qalcadihii daa'if ku yaallay inuu galay. wuxuu yidhi waxaa u sheegtaan hadduu yimaado reerkiisii iyo carruurtiisii iyo xoolihiisii iyo boqol geelaba inaan siinayo. dee isna waa iskaga yimi ilaa meesha gaalnimu bugu haystee wax dhafla kuma haysanin. waa iskaga yimi xoolihii iyo reerkii iyo boqol geelaba waa la siiyo wuu islaamay. waxaanu ka mid ahaa berigii dambe raggii muslimiinta ee islaamka u dagaalamayay. bale waxaa la yidhahdaa wuxuu ka mid ahaa raggii haqiif laftooda kula dagaalamay daa'if markii dambe. reer haqiif rag ka mida baa la yidhaahdaaba iyaguna arrimahan iska diiday markii ay cidhiidhigan badan iyo waxaan dareemeen iyo daa'if meel yaroo cidhiidhiya inay ku taallo dhan walba muslimiina ka xigo. waxay sheegaan culamaa'i taarikh curwat ibnu mascuud athaqafi inuu isna iskaga yimi oo islaamay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiine kusii socda inuu soo gaadhay oo dabeetana islaamnimadiisii caddaystay oo uu ku noqday tolki oo uu sidii wax u sheeganimo dad aadna way u jeclaayeen. laakiin gurigiisii intuu tegey bay yidhaahdeen buu addimay, dabeetana mid baa gamuun ku dhuftay. gamuunkaasi uu u geeriyooday baa la yidhaahaa. waxaanu ku dardaarmay shuhadadii muslimiinta ee markii xisaaru daa'if socday meeshii lagu aasay in lagu aasay. riwaayaadka siirada qaar ka mid ah ibnu isxaaq baa biduuni isnaad ku soo arooriyey, inkastoo muusa bnu cuqba uu isagu khilaafay oo uu leeyay xajatu abibakar baabuu islaamay ee wakhtigaa muu islaamin. ibnu kaiirna riwaayadda ibnu isxaaq buu xoojinaya wallahu aclam ilxaqiiqa. ramadaantii sanadkii 9aad yani sanadkii dambe ramadaanteedii ayay nimankii reer haqiif is yidhaahdeen dhibtan iskaga baxay wafdi soo dirteen uu hogaaminaya ninkii la odhan jiray cabdiyaaleyl ibnu camar. cabdiyaaleyl ibnu camarku waa labadii nin uu nebigu magangeliyada weydiisanayay berigii uu meesha tegay daa'if ee hore lasoo dhagxamaynayay. cabdiyaaleyl ibnu camar kaasoo 3 nin oo reer banu maaliki la socdaan iyo 2 nin oo axlaafta ka tirsan ama ayaa yimi. mugiirata bnu shucba baa soo arkay baa la yidhaahdaa. dabeetana wuxuu u sheegay abubakr sidiiq. abubakarna markaasuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigu aad buu ugu farxay inay markaasi soo islaameen. waa caamul wufuudka dambe aynu ka warrami doonno insha allahu tacaala ayay soo islaameen oo yimaadeen. waxaa la yidhahaa mugiira markaa wuxuu baray aadaabta islaamka iyo nebiga markay u tagaan waxay odhan doonaan say taxiyadii islaamiga ahayd ee say u salaami doonaan iyo nebiga say ula hadlayaan iyo inay aamusaan. nebiguna wuxuu dejiyey baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam qubo masaajidka agtiisa ah oo halkaase uu yidhi ha ka dhegaystaan qur-aankana ha maqlaan, muslimiintu siday u tukanayaanna ha arkaan. islaamnimadoodiina way muujisteen. kadibna waxaa la yidhahdaa abu sufyaan ibnu xarbi iyo mugiirata bnu shucba baa lagu soo daray oo waxaa la yidhi ha la dumiyo sanamka meeshooda yaallay la yidhaha laata iyaga aftooda u ooli jiray. culamaa'i taariikhna riwaayado badan bay sheegaan markaas. waxaa la tilmaamaa nimankani markii ay yimaadeen waxay yidhahdeen waanu islaamnay, laakiin codsiyay la yimaadeen. horta annaga salaadda hana laga daaya bay yidhahdeen waa islaamaynaay. wuxuu ku yidhi baa la yidhi nebigu
laa khayra fii diinin laysa fiihi rukuuc diini khayr ma leh aan cidiba rukuucaynin taasi khayr ma leh buu ku yidhi ibnu isxaaq baa isnaad mucabara ku soo arooriya waxay kaloo sheegteen calaa kulli xaal sunan abi daawuud isnaad xasan lidaatihiya waxay ku sheeganayaan inay yidhaahdeen zakada iyo jihaadkanana laga daayo waxaa la yidhaahdaa kuwa nebigu wuu aqbalay dabeetana waxaa la yidhahdaa jaabir ibnu cabdillaahi baa maqlay isagoo nebigu leh sayatasaddaquuna wayujaahiduuna idaa aslamu hadday islaamku soo galaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani waa iska hadal ay sheegsheegayaan hadday islaamnimadu soo cagaha soo geliyaan waanay sadaqadaysan doonaan waanay jihaatami doonaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabahay sheegteen baa la yidhaahdaa waxay weydiisteen waysada in laga dhaafo dhulka iyagaa qabow in loo daayo nebiidka waa iska nebiidku waa nooc biirka ka mid oo kale oo meesha iyadaa qabow waxoogaaga aynu cabno waxaasoo dhanna baa laga diiday wana calaa kulli xaal gu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam si axaadiista musnad imaamu axmed ku taalla ay tilmaamayso waxay kaloo codsadeen abaabakra thaqafina in loo soo celiyo waa qoladii uu nebigu yidhi addoommihii ciddii soo dhacda waa xor mid ka mida bay dhaheen naloo soo celiyay kaana wuu u diiday baa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay meesha joogeen cuثmaan ibn abilcaas ayaa ugu fiicnaa baa la yidhi qur-aan barashada iyo tafaquha diinta iyo waa ka iyagaanu nebigu amiir isaga uga dhigay ninkaasaa idinku aqoon badan baa la yidhi isagaa idiin ah haddana da ahaan ragga meesha marayay baa la yidhahdaa waa u yaraa isagaase looga dhigay amiir markii ay islaameenna nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aalo badan bay weydiiyeen xataa saxaabada su'aalay weydiinayeen su'aalahay saxaabada weydiinayeen waxaa ka mida baa la yidhi waa qur-aanka saa axzaab uga dhiga saa u qaybsataan qur-aanka yani maalin walba xisbi qofku inbuu akhriya saad u akhridaa waa kuwii ku lahaa saxaabadu waxaanu u qaybinaa 3 suuradood 5 suuradood yani 3 suuradood hore waa xisbi maalin la wada akhriyo 5 suuradood ku xiga 7 suuradood ku xiga 11 suuradood 13 suuradood iyo xisbul mufassal xisbigan qaaf ka bilaabma waana tartiibka macruufka ilaa hadda ah wafdigu kollayba intii uu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam iyo muqaabalaadkii tirada badan leh ayuu raadeeyey baa la yidhaahdaa markaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaanba ramadaanta inteedii dambaba xataa inay soomeen baa la sheegaa waxaanay nebiga la joogeen calayhi salaatu wasalaam 15 maalmood kadibna daa'iftoodii bay ku soo noqdeen iyadoo la soo raaciyay baa la yidhaahdaa abu sufyaan ibnu xarb yani waa sanad kadib baynu israacinay reer faqiif warkooda si aynu isu wada dhaafino iyagoo uu la socda abu sufyaan ibnu xarbi baa la yidhi iyo mugiirata bnu shucba athaqafi oo loo soo diray inay laate dumiyaan waxaa la yidhahaa markay laate rabeen inay dumiyaan ibnu isxaaq siduu soo arooriyo laate dumintiisii buu yidhi dumarkii reer banu haqiif oo dhan baa isu soo baxay baa la yidhi oo ooyaya ila ilaah baa la duminayaa meeshan yaalley sanam la caabudo dee dad sanado dhan ay ilaah u haysteen ooyaya markaasaa waxay u haysteen baa la leeyahay dee waxay islahaayeen fa'rigiisa kollay markuu taabto ama gacanta engegi ama meelunba engegiyo dee naftaa ka bixi doonta islahaayeen kooxda tan laakiin ayar bay dumiyeenoo xoolihii lagu guri jiray iyo wixii la siin jiray inay ka qaateen waxaa la sheegaa xataa waxay dhahdaan mugiirata bnu shucba suu sheekooyinkaasi ay wariyaan inkastoo aanay xoog badnayn sanad ma lehe waa sida uu ku soo saaraan une riwaayaan sanad wadan waxay dhahdaan xataa mugiirata bnu shucba baa ku cayaayaray oo markii uu meesha yimi baa la yidhi micwalkii mandaraqii yaraayo uu sitay uu rabay inuu ku dumiyo ayuu intuu isla soo intuu ag dhigay baa la yidhi oo tuuray buu cararay mugiira soo iska dhigay yani kaanamaa nin dee uu ninku aarsaday oo kale markaasa islaamiya wixii inta la wada hadlaa leedahay fa'arati rabba baa la yidhi ilaa haddii waxba iska celisay yani rabbigii sanamkii waxba iska celisay intuu ku qoslay baa la yidhi buu ku soo noqday oo madaxa ka gooyo waxoogaaga xoolaana kala baxsaday ka qaaday calaa kulli xaal labadaas saxaabi baa dumiyey laata duuduub ahaan haddaynu qaswada tan dhammayno waxaa la yidhahdaa axkaamta ku soo degtay gaar ahaan marka tashriica laga fikray axkaamtu say isu nasakhtay u kala dambaysay ayaa inta badan laga fahmaa haddaad garanayso taariikhdii axkaamtaasi ay soo degtay waxaa ka mida baa yidhaha walmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum aayaadkaasa kusoo degay baa la yidhi maalintii awtaas iyadoo la caddaynayo dumarka lasoo qafaasho sibyiga lasoo qabsado iyo haweenka kale
يعني sibyigaasi raggoodii laga keenay ayaa ayadana cadaynaysaa baa la tilmaamaa ciddadoodu in bacda alcidda uun loo galmoon karo ciddaduna inay ku xidhan tahay intay uurka ka dhigayso ama xayda hal dhig intay ka helayso waxaa la yidhahdaa waqtiga kan raggan mukhanasiinta iska ah khilqatan naagana iska kuwaasina nebigu wuxuu diiday inay dumarkaba u galaan غزوadan intii lagu dhex jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in dumarka iyo carruurta iyo odayadaba la laayo riwaayaadka bacd alxadiid abu daawud uu warinayo inkastoo sanadkiisa waxoogaa nin ku jira ragga badhay ka hadlaan waxay dhahdaan waqtigaa mid khamri cabayna waxa lagu oogay xadkaa lagu oogay oo in xuduudda la oogi karo daar ilxarbiga bay qaar u daliishadaan waxyaabaha ghaswadatan la daliishado waxaa ka mid ah kaafirka ama mushrika in la isticaanaysan karo maadaama duruucdii safwaan ibnu umaya iyo kuwa kan la qaatay waana qadiya culammadu ay isku khilaafaan inkastoo ay leeyihiin shuruud hadday hesho ah caamka inay muslimiintu hogaaminayso oo dee qof iyo laba iska dhex socda ay yihiin waana mas'ala imaamu shaafici uu ku tilmaamayo maalan berigii hore inay mamnuuc ahayd kadibna in la ogolaaday saasaanu imaamu shaafici uu ku tegey markii horena inay mamnuuc ahayd mushrikiinta in la icaanaysto markii dambena in la ogolaaday wallahu aclam alxaqiiqa waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka mid a iyaduna masaladan mu'alafatu quluubihim in xoolo badan la siin karo imaamka ra'yigiisana inay ku xidhan tahay sida axaadiistii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa ka mid ah jicraana meesha la yidhahdo in cumro laga xidhan karayo ghaswadaasi saasay ku dhammaatay in sha allah waxaynagu hadhay hal ghaswo iyo axdaaftii ugu dambaysay alaxdaaf alakhiira waxaynu bixin doonnaa in sha allah oo ku saabsan uun caamil ufuud sanadkii nebiga loo wada yimi xajkii abibakar xajkii nebiga xajatulwadaaca ciidankii uu saamay uu nebigu diyaariyay iyo geeridiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa waxaa ka soo horreeya inoo hadhay waa ghaswatu tabuuk baraynu in sha allah bilaabay wallahu aclam billahi tawfiiq